waxaa lagu jiraa waqtigii ugu qatarta badnaa ee soo mara taariikhda bariga dhexe muddo 10 sano ah haatan oo aan tabinayno falanqayntan matooro diyaarado ayaa si qarsoon waxay uga shidmayaan saldhigyo Mareykanku leeyahay halka Tehraan hogaamiyaasha ilaalada kacaanka ay farahooda saareen badhamada goobaha gantaalada ee dhulka hoostiisa ah ma dagaalkii ayaa bilowday mise waxaan ka marakacaynaa mala awaal iyo dhagartii ugu istiraatiijiyadsanay taariikhda casriga ah muxuu Trump kala hadlayaa golaha amniga qaranka ee Mareykanka ee uu kulanka la leeyahay maxaa xiga muddada kama dambaysta ah ee loo qabtay Iran haddii hal gantaal lagu dhufto Iran muxuu yahay jiritaanka Israa'iil sidee ayay gantaalada ka soo hoobanaya Lubnaan Iraq iyo Yemen u baabi'in doonaan maamulka gumeystaha Shiinaha oo xiriir dhaqaale oo sal adag la leh Iran sheeda miyuu ka daawanayaa shirqoolka Washington Ruushka muxuu yahay mowqifkiisa su'aalahaas iyo kuwa kale ayay si gundheer u faaqidaysaa tabinteennan Tafaftir Media ee soo dhawaada وهجاك أرنتو ما أحد دقائق عيدان أو عادي waa ururintii military ee ugu ballaarnayd tan iyo duulaankii Ciraaq ee Mareykanka 2003 iyo dagaalkii labaad ee adduunka markabka xambaarada diyaaradaha ee ugu awoodda badan dunida ee USS Gerald ayaa jaraya badda Mediterranean-ka halka USS Abraham Lincoln uu ku sugan yahay badda Carabta Tehran si lama filaan ah ayay u xirtay hawada qaybo kamid ah koonfurta dalkeeda sababtoo ah gantaalada ballistiga ayaa laga soo saaray bakhaaradoodii ila xogogaal ah ayaa sheegaya in la arkay in gantaalada Khoramshahar iyo Sajiil lagu shubayay shidaal dareere ah tallaabada ugu halista badan ee ka horeysa bilaabashada dirirta tani waxay muujin kartaa in Tehran isu diyaarinayso weerar hore haddii ay dareento in duulaanka Mareykanku uu noqday lama huraan dhanka kale hadallada adag ee Donald Trump waxaa barbar socda fariimo qarsoon oo la marinayo dalka Cumaan aqalka cad ayaa la sheegay inuu dejiyo waqti kama dambays ah kaas oo ku eg dhamaadka bishan Febraayo waxaa lagu dalbanayaa tanaasulaad niyad jab leh oo joojinaya himilada nukliyeerka Iran haddii kale waxay Tehran wajahaysaa cawaaqib daran laba dalaalahaas Iran dhegna jalaq uma siin inkastoo ay u dhaxayso dhagax iyo dhimbil waayo magaalada Qudus Benjamin Netanyahu ma sugayo warbixino heerka feejignaanta Israa'iil ayaa dhaafay xuduudihii casaanka isbitaalada dhulka hoostiisa ah ayaa la diyaariyay godadkii looga baxsan lahaa gantaaladana waa la furay sawirka la filayo ma aha hal rasaas balse waa duufaan dab ah weeraro cyber ah oo curyaaminaya raadaarada dabadeedna mawjada gantaalo Tomahawk ah oo lagu beegsanayo saldhigyada ilaalada kacaanka ujeedadu waa in la jabiyo awoodda Iran ee jawaab celinta 10 sano ee soo socota warbaahinta Mareykanka waxay sheegaysaa in dhaqdhaqaaq aan caadi ahayn uu ka socdo saldhigga Al-Ubayd in la bixiyay amar iyo in kale kalama cadda laakiin hawada khaliijka waxaa si taxadar leh loo maareynayaa duulimaadadii rayidka iyadoo wadamada qaarkood ay joojiyeen Moscow ayaa digniin culus dirtay Kremlinku wuxuu ka hadlay kacdoon aan hore loo arag Ruushku ma daawan doonaa oo kaliya waa su'aal waqtigu ka jawaabi doono dhanka kale fariimaha xaqiijinaya in waji colaadeed la galay waxa kamid ah digniinta Poland ee muwaadiniinteeda faraysa in ay ka baxaan gobolka saacada gudahood Poland waa xubin ka tirsan NATO xogteeduna waxay ka imaan kartaa qolalka laga abaabulo howlgallada halka indhuhu ku jeedaan koonfurta Iran sawirada yaxgacmeed ayaa muujinaya dhaqdhaqaaq ka socda saldhigga Hamdan diyaaradaha Sukhoi ee laga keenay Ruushka ayaa galay heegan dagaal tani ma ka dhigan tahay Tehran inay dooratay iska horimaad toos ah halkii ay ku tiirsanaan lahayd dagaal wakaaladeed xuduudda Lubnaan iyo Israa'iil kooxda Xisbullah ayaa si xeeladaysan u wada dhaqdhaqaaqyo dahsoon taas oo ka dhigan in midnimada jihooyinka ay firfircoon tahay gantaalada saxda ahna ay diyaar u yihiin in la rido marka hal bam uu ku dhaco Tehran suuqyada maaliyadeed ee caalamka ayaa si qeyrul caadi ah uga falcelinaya xasarada qiimaha saliidda iyo dahabka ayaa sare u kacay maalgashadayaashuna waxay og yihiin in marinbiyoodka Hormuz uu ilbiqsiyo gudahood isugu bedeli karo qabuuraha maraakiibta shidaalka taas oo curyaamin karta dhaqaalaha adduunka warar ayaa sheegaya in Donald Trump uu u dhaqaaqay kulan degdeg ah oo uu la yeesho Marco Rubio xogayihiisa arrimaha dibadda iyo kooxda amniga qaranka iyaga oo dib u eegaya khariidada bartilmaameedyada qorshuhu waa guul degdeg ah oo nadiif ah hal jug oo dhabarka jabisa oo ku qasabta hoggaanka sare ee Iran inay yimaadaan miiska wada xaajoodka dhanka kale Tehran waxay baahinaysaa muuqaalo muujinaya magaalooyin gantaalo ah oo ku jira qalbiga buuraha taas oo ah fariin cad gantaaladu waxay ku hoos jiraan 100 mitir oo shub ah Israa'iil waxay tijaabo dhab ah gelisay nidaamka laserka ee difaaca cirka iyada oo ka baqaysa kumanaan gantaal oo ka imaan kara Ciraaq Yemen iyo Lubnaan si loo furfuro difaaca birta kadibna laga adeegto oo xataa la laayo hoggaanka maamulka gumeystaha
arrin kale oo muhiima shiinaha ayaa ku baaqay in Washington ay ka laabato qarka godka. Beijing waxay ku tiirsan tahay saliidda Iran, wax kasta oo ku dhaca xididkaasna waa dagaal dhaqaale. Dulimaadadii rayidka ayaa la joojiyay Ciraaq, Urdun iyo bariga Mediterranean-ka. dadka ku dhaqan Tehran iyo Tel Aviv waa ay anfariinsan yihiin iyaga oo eegaya cirka. warbixin sirdoon oo la soo dusiyay ayaa sheegaysa in quusayaal nuclear ah oo Mareykan ah ay galeen heegan weerar oo ku sugan badweynta Hindiya. haddii la xaqiijiyo tani ma aha mala awaal, waa fulin ka socota biyaha hoostooda, halkaasoo Iiraanna sidii aan warbixintii hore ku tabinay ay u haysato gantaalbadeed biyaha hoostooda mara oo daqiiqad ku burburin kara maraakiibta waaweyn ee Mareykanka. xilligan waxa ugu cabsida badan waa aamusnaanta ka hor duufaanta. go'aamada waxa lagu gaaray godad dhulka hoostiisa ah, askartuna waxay cabaysteen qoryahooda. dunidu waxay sugaysaa jawaabta hal su'aal: tani ma noqon doontaa markii ugu dambeysay ee deganaansho, mise qorraxda ayaa la soo bixi doonta xaqiiqo cusub? xaqiiqo xuduudaha lagu sawiro dhiig, heshiisyaduna lagu qoro burburka magaalooyin. inkasta oo waqtigu ka jawaabayo su'aalahaas, Tafaftir Media waxay isha ku haysaa halka uu geedigan colaadeed ku furo, iyadoo aan si qoto dheer ula soconno hadba marxaladaha muhiimka ah. adigana ha mogaanin inaad ku soo biirto kanaalkeena, saaxiibadaada la wadaagto, isla markaana aad ra'yigaaga noogu reebto qaybta faallooyinka ama commenteska. waa Abubakar Maxamed oo idin leh waqtigiina ayaad ku mahadsantihiin. nabad iyo warsan.